السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوبل هالك وجانا لك فعليها الداب على وجهك ورا ما وربحين تا إيروين الداب ما أنت وحني يوم وضع وربحين كسر دوبل وربحين تن وحني كوضع هاي دلته راس أما دياري ولانت أتاجن دولة كينيا وحصارن إن أي بحسوا أمنية يو وحياة بدن كشخصة سيدا طول كورسكو هايستو علينك الجرعي علينك البحنايو هذا ما أنتوا عايزين وضع warqadaas oo ah shay dhulkii lagu bixin lahaa allinka maadaama in badan allin la bixinin oo qaxootigii allinkii faraha warqadii ku sugtay haystaan oo allinkii ay bixinin diyaare hadda waxay soo banaan bixisay in ay allinkii bixin rabto isniinta soo socotay ayuu bilaabanayaa allinka ay si loo bixinayo iyo blog loo geli doono ayaan rabaa inaan halkan ka sheego nin kasta uu imaado bloggiisa waa dhagax liibis if way xaga dheer waan sugayaa if way xaga dheer markay ay imaadaan ayaga waan soo bandhigi doonaa laakiin hadda waxaan hayaa tii dhagax lii maanta ayaan hayaa hadda waxay soo dhigaa tii dhagax lii sidii blogaha loo geli lahaa sidii allinka usoo dumaan lahayd maanta hadday imaato shikshinkaada u gelinin aad imaato fadlan laguma siin doono allinkaada hadduu yeeli lahaa waxaa la rabaa nin kasta maalintiisa inuu imaado covid-19 a jira dadka waxaa la rabaa inay kala fogaadaan mask ay soo xirtaan waxaa la rabaa inay kala durqaan waxaa la rabaa inay gacmaha la dhaqo markii meesha la imaado waxyaaba badan loo baahan yahay waa taas waxaa looga dhigay in ay qofka bani-aadanka ah shikshinkiisa keligiisa markuu galayo ugu imaado sifa jam ay u dhici meesha shikshinkaada maanta waxaa laga yaabaa dad yar inay allinkooda ugu soo baxay dadka hadday imaadaan waa loo shaqeyn doonaa meesha jamka ma dhacayo laakiin haddii shikshamada dhan jug isoo dhahan 11 shikshan waa iska dhib badan tahay marka dadweynaha waxaan ka codsanayna inay imaadaan shikshamada kaliya imaadaan hadda inay bilaabaya waxaa rabaa inaad dhegeystiin nin kasta shikshinkiisa marka taariikhda waxaa bilaabaya tahay 25 bisha koowaad 2021 ayaa la bilaabaya waa maalin isniin waxaa bilaabaya section A iyo A11 oo loo bixiyay L blog la dhigay A11 section A11 L baa lahaa markan blog section ma badan magac loo bedelay halka inta ka ogow blog 25 bisha koowaad 2021 waxaa bilaabaya blog A iyo A11 oo loo yaqaano section L taanta ku xigta oo talaada 26 bisha koowaad 2021 waxaa bilaabaya section B iyo C imaanay waa allinka ay lagu siinaya dadka ku sugta haysta imaanay dadka loo goynaya maaha waa dadka ku sugta haysto in allinka ay soo doontaan waa maalinta labaad waa 26 bisha koowaad 21 section B iyo section C ay imaanay maalinta saddexaad waa 27 bisha koowaad 2021 waa section D iyo E section D iyo E oo dhagaxli ah maalinta afraad waa 28 bisha koowaad 21 section F iyo section G ay imaanay section F iyo G waa imaanayeen labaatan sagaal bisha koowaad 2021 waxaa imaanaya section H iyo M yaa garanay M waxaa la dhahaa section new block meesha la jiri M ayaa la dhahaa M waa new block dowladda u bixisay hadalka ma jiro ninkii ka hadlo waa lagu tuuraya taariikh kow bisha labaad 21 section J iyo K waa bulbakti dadka joogay ama bulburaqo waxaa waqaanto waa taariikh kow bisha labaad 21 waa section J iyo K section J iyo K waa gudoomiyaasha loo qaybiyay chairman waa loo dhiibay sectionada loo qaybiyay warqadan marka waxaa la rabaa nin kasta sectionkiisa maalinta ku qoran yahay inuu imaado waxaa bilaabaya A iyo B waxaa bilaabaya A11 B iyo C ku xigaan D iyo E ku xigaan G iyo F ku xigta H iyo M ku xigta oo new block ah J iyo K ku xigta oo bulbakti ama bulburaqa taa taqaano marka dadweynaha laga codsanaya inay imaadaan ay soo doontaan allinkooda dad badan ayaa maqlay dhahay ifo haddaan allinka u dhacay waan la qabanaya kusug baa wadana 5 sano imaw kusugta 5 sano haddaa wadato waa lagu fiirinaya wax kugu dhaca dad waxaa jira kusugta ayagoo haystaan kusugal goosteen duplicate allah kusugta ayagoo qabta kusugal goosatay dad waxaa jira usoo bixin dad waxaa jira faraha ka halaabeen kulli dowladda u imaada haddaa imaatiin allinkaaga hadduu soo bixi waayo wuxuu usoo bixi dowladda la weydini allinkaada meesha gelinaya waa la fiirinaya nairobi loo diray akhbaar waa lagu soo diraya warbixinta waa helaysaa marka u imaaw warbixinta oo saxa waxay diyaar u tahay inay ku siiso allinka wixii yeel allimo badan imaaday oo cusub waqtiga saasa loo gelaya ninkii rabana waan soo dhigi doonaa beedkaan soo gelin doonaa sidii loo dhigayo sidii loo bixinayo warbixinta loo meesha waxaa kala socon kartaa facebookka faaliyaha dhadhaab ama youtube-ka faaliyaha dhadhaab ama Cafe Media YouTube ayaa kala socon kartaa fadlan intaasaan kusoo gabaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu